agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland Maxamed Faarax Xirsi iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda wasaaraddaasi deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ayaa kormeer xaqiiqo raadis oo ku tagay dhaambiyood ama ballibiyood weyn oo wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland ay ka qodayso deegaanka Bancool oo ka tirsan gobolka Togdheer. ballibiyoodkan weyn ee laga hirgeliyay deegaankaas oo qaadkiisu noqon doono 17 mitir kuyoobig ayaa isagu wax weyn ka tali doona baahiyii dhinaca biyaha ee hore uga jiray deegaankaasi. agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland Maxamed Faarax Xirsi oo ka hadlayay hirgelinta dhaambiyoodkani ayaa xuseen wax weyn ka tali doono baahiyaha biyaha ee deegaankaasi. dhaamkan oo qaadi doona ilaa 17 mitir kuyoobig imika waxa weeye waa u dhameystir buu ku dhow yahay iyadoo feniskiisi iyo taarkiisina loo dhameeyay. waxaan filaynaa dadka deegaanka degan Bancool inay ka faa'iideystaan ilaashadaana waayo dhaamkan hoos buu ilaa 3 mitir buu hoos qoran yahay. agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland waxa uu sidoo kale ku eedeeyay wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland inay xilligani banka aroori ka wado seerayaal. agaasimaha arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri laakiin seerayaasha dalka amba Togdheer ha ahaato amba gobolada kale oo dhan ahaatee wasaaradda deegaanka ka mas'uula gobolkanana waxaan oo register gareysan in 27 seere ay ka mid yihiin ka aroori ee xanaanada xoolaha hadda gacanta la gashayna waxa weeye waa seerayaasha ayuu ka mid yahay waana ka ugu labaad ee ugu weyn gobolkan.